ururka Aasiyo markii aan asaasayna runtii waxaan ugu dhaliyay waxay ahayd 2006 waqti runtii ay aad u Soomaaliya howlo badan uga socdeen dagaalo socdeen waxaan ku leeyahay nabadda ay xoogaa inkastoo ay marba heer mareysay waqtiyada ugu nabadda bilow ugu dareed ay ka mid ahayd inaan bal horta wadankii xaggiisa aan anaga waa kasoo samata baxnay inaan bal dadka ku heray waxaan u qaban karnaa u qabano xagga kaliya aanan fiirino hadda Holland dhexdeeda xataa dad badan ku dhiban oo markaas ama qof cusub oo timid ha noqoto ama qof haddii xataa ay in badan joogto weli caawimaad u baahanaa jiro adii Soomaalida Holland iyo Soomaali jirtaba inaan labadaba wax badan ka qabano aan ku talagalnay laba howlan xoog saarnay nabadda iyo caafimaadka labadaas aan xoog saarnay magacaasi wuxuu ka soo jeedaa hooyaday macaan aan la dhihi jiray magacaas waxaan hooyo ugu doortay qof walba hooyadeed way jeceshahay laakiin iyada waxaan aaminsanahay inay ahayd qof bulshada dhexdeeda magac ku leh wax badan qabato wax qabadkeedana oo mar walba ku saleysnaay xirfaday lahayd haw badnaato laakiin qof dadka aruuriso beledkay jecleed deganeed laga jeclaay ahayd degmada Cadale aan ku dhashay iyada aadi baa ku dhalatay laakiin Cadale loo soo guursaday Cadale waxay ahayd qof haweenka umulisay ahayd maadaama umulisay ahayd dad aniga anaad ilmeeda ugu yaraay iyo wixii iga waaweyn iyo kuwa iga dambeeyaba iyada soo qaada adduunka maanta ugu horeysay imaahayeen marka magacaas runtii iyada ahaan u dooranay waxaan ku magaceeda si uu sii jiro annagana inoo noqoto role model qof aan ku dayano markasta hooyada waa ku tahay haddana markay hooyo ummad dhan hooyo u ah ku tahayna waa kasii fiicanta Rotterdam uu ku aasaasay laakiin wuxuu ka howlgalaa hadda magaalooyin ahaan inta badan waxaan hawshayna ka qabanaa Rotterdam iyo agagaarkeeda Kabeel way soo galay Kabeel aan Aysel Rotterdam iyo agagaarkeeda marka la dhaho isla markaasna Dambosh Bastuur qof ahaan noo joogto Nafisa la yiraahdo idan howlo badan ka qabataa Den Haag marmar howlaan ka qabanaa hadba meeshii aan noo baahata laakiin hawshayna inta badan waa Rotterdam statuskeena oo yaala markii hore Soomaaliya oo asaasnay laakiin howl hadaa qabaysid baahidu way balaaraysaa hadda qaxootiga oo dhan wuxuu qabanaa hadda waxa ugu dambeeyay bareegto ku dhawaad 4 sano iyo bar socoto oo sanad iyo barkiiba la cusboonaysiiyo oo aan u qabano dadka waayeelka ah ay ugu yartaa 55 sano adiga Hollandeeskan waayeel wuxuu yaqaanay 65 iyo wixii ka sareeyay laakiin annaga 55 ba qofkii wuxuu iska yahay oo baahidiisu way ka badan tahay qofka wadanka ku dhashay dadka maxaa ka caawisan waxaan ka caawinaa inaan macnaha la siiyo caafimaadkooda wax ku saabsan oo macluumaad ah haday sokor qabtay oo la dhaqmileysay oo la noolaaleed qof kasta ileen moogta jirada inay kugu dhacdo kaliya ugu dishay waxay kugu dishaa inaadan aqoonsa oo la noolaaleed bay mid hadda bareegtada aan wad markaan ku sheego waayeelka waxa badana dhibaatada ku dhaca jirada marka laga soo tago waxa ugu badan iyadana inay dareemaan kelinimo cidlo waayo qofka Soomaaliga wuxuu ku dhashay meel qof walba qofka wali markay waayeel noqoto inta ilmaha iyadu ahayd kuway dhashay marka laga reeb deriska xataa qiimeeyaan loo soo gelay la sheekaysaa meeshan mala waxaas kuwa dhashay xataa aadan arkeen oo qof walba gurigeeda iyo shaqadeeda la raacay marka maadaama cidladaas ay dareemaan waxaan isugu keenaa meelaha buurta hawsiyada markaas ay kuna sheekaystaan haday jimicsi rabaan ku jimicsadaan haday dietist rabaan loogu sameeyaa wacyigelin ku saabsan sida cuntada caafimaadka inta ah ay cun lahaayeen cuntadan badan oo iska barano cunitaankeeda daawayeel noqoto saa isaga ilaalineed waxa ku roon waxa fitamiinada ku jiro waxa miir u baahan tahay aad ugu baahan tahay waxa soo dhanaan loo sharxaa xuquuqda ay leeyihiin xaq ay leeyihiin waayeel ahaan dawladda dhaqaalahooda waxa ay leeyihiin qaara beeshinka galay hadana sidii loo dalbado aqoonin oo da'da haday gaaraan waayeelnimada waa ka baxayaan tii ceyrta waxay galayaan meel kale waxa soo dhanaan loo sharxaa marka annaga tayna kulay taasna hadda runtii in badan aan soo wadnay Soomaali marka kuma ekeyn waa sii wadnay hadda waxa ku jira qaxootiga Syrian Eritrean
ciraaq, egypt, maxaa la dhihi jiray isheek adig dhowr wadan oo kala duwan, suudaan, wadamada qaxootinimada ku yimaado waayeelkooda hadda waxaan u sameynay iyada naftooda inay nagu soo darsamaan si ay hawshaan uga faa'iidaystaan. qof iyaga ah ayaan u sameynaa contact person ah oo afkii xaggiisa ka caawiso. markii anay af Soomaaliyan ku hadlo, Carabi kuma hadlo, af Soomaaliyan ku hadlo, Afghanistan kuma hadlo karo, deri wax saasay leeyihiin. dadkaasna dadaa u joogo oo annaga nala shaqeeya oo saasaan ku caawinaa marka inta badan. Badda oo bareegtada toos hadda dhalinyaro qaar faraafiliq ahaan noola shaqeeyo iska xoqabso, laakiin dastuurka waa ku qabnaa dhalinyaro. iyagana hadda naftooda maadaama arrimahan oo gudniinka aan hadda awalna hawshaan u bilownay ay ku jirtay, in badan aan aniga ahaan aan ka mid ahayba slootal barsoonka dadka loogu yeero, macnaha dadka aada wacyiga geliyo maxaa arrimahan dhibaatada ay u leedahay haweenka Soomaalida inta badan uma dhaga duleelaan, dhibka ay ku arkaan xataa uma qabaan inuu gudniinka u geystay, waa iska fududaysanaa. mar sidii looga jooji lahaayaan ku dadaalnaa. marka dhaqankeena saraadiga ah diin shaqo ku lahayn, saas darteed waa rabnaa inaan dhalinyaro badan hadda arrimahaas gobolkeena waa laandalag ifsana u qaabilsan, laakiin magaaladeyna inaan batrokan badan ku noqono. aniga waa ku ahay, laakiin hadda dhalinyaraan raadiyahoynaa si at least dowladda hoose ee Rotterdam ay u siiso attention gooni ah dhalinyarada arrimahaas sameeya. waalidkood samey jireen, laga yaabo inayn hadda sameyn, laakiin iyaga say berri ilmooda iyagana u ilaalin lahaayeen. taasaan aada runtii hadda u rabnaa inaan hawshaas iidana galno. runtii midda oo yeeridda waa midda ugu culus. hawsha dhan marka la qabaayo yeeridda si noogu culus, waxay noogu culus tahay qof aad dhehaysid kaalay waxaan laga wada sheeka hooyooyina isu imaahayo ama aabbayaal ay ka sheekaysaan habka korinta ilmahooda. taas waxay wax badan uga faa'iideeyay. ma aha jaamacad la tagay, ma iskool la tagay, way aragnimaa la kala qaadaa. markii cunuga waxaa laga yaabaa wax aniga dhib si fudud aan ku xaliyey, hooyo kale inay ku culusta. haddii marka laga hadlo waxaa laga yaabaa hooyadaas iyadoon xafiis kale u baahan inay u tagto hay-ada waaweyn inay cunugeedii xaliso karto, laakiin waxaa laga yaabaa arintaas darteed in beri ilmihii looga qaato yaroo ay xali weyse. waa ilmaha meeshaan joogo dhaqamo kala duwan ay ku korayaan, confuse ay qaadayaan. hooyadii aan fahamsanayn cunugeeda siday confusekaas uga ilaali lahayd, ama aabihii aan fahamsanayn, ama labadii isqabtoon isla fahamsanayn, ilmaha badanaa meeshaasay ka baxaan. waayo qacda ay yimaadaanba waxaa lagu beeraa fikir ah free aad tahay, wadan free ahaa timid, free aad tahay. cunugii marka jaa waalid ka cabsashadii meelooba soo dhigahaaba wuxuu aaminsan yahay soo raba inuu u hadli karo, waalidkan uu ku dhihi karo. waayo macalimad annaga waxaa nala bari jiray macalinka waalidkii oo kale waaye xushmee. inta waxaa la baraa macalimada hebla dheh, magaceeda janiin waaye janiin dheh aa la leeyahay. cunugii marka jaa respectadiiba meeshaasuu kasoo fahmay in wuxuu raba dhihi karo. marka ilmihii marka haddaysan marka fahmin hooyada cunuga saas inuu u baahan yahay inay dhegaysato oo aysan amar siinin. ilaa annaga taan kusoo korna waxay ahayd cunuga ha dhegaysto, waalidkan amar ha dhiibo. hadda waa bilcagsi. bilcagsi oo in lays dhegaysto waay, welibana inaa adiga dhegaysato. waa isagii ma fahmaayo waxaan adiga aada og tahay inuu meeshaan wadan kale la yimid oo cunugaaga hadaadan dhegaysan isagoo marka ciyoonkuma dhegaysayo. marka adiga bar inaa isaga dhegaysato, markaa isaga dhegaysato usna waa ku dhegaysaa. dhegaysiga marka annaga saa u naqaano oo ah inaad keliya haye inta tiraahdo aadan samayn ma aha. dhegaysiga waxaa waa inaa cunuga wuxuu rabo inta dhegaysatid haddana aada u samaysid. weliba dhegaysi keliya ma aha, waa inaad wuxuu kuu sheegay serious u qaadatid oo aad kasoo baxid, waxaa ka wada hadasheen. waayo iskoolkii waa saas loo kala dhaqmaa. haddii marka aad iska fududaysato tiraahdo beri koba iyo soo ginto ku dhaho kale hooyo haye waa kuu soo geda adoon lacagtiba haynin, waxaa ka fiican inaad tiraahdo lacag ma hayo hadda, bishii 5 ku siiyaa, shilin aruurso, shilin anaa kugu daraay, markay intaas noqotaan soo gedayna. cunugii wuxuu fahmaa wax cad oo aan muran lahayn oo fahmaa. laakiin haddaa iska ballan qaado asaadan ka imaanin, waa hadhow wax ugu daran ay ilmaha iyo waalidku isaga kulmaan. wuxuu ku yiri koba qaali aan rabaa. kobaha qaaliga inaad gedi karto inaadan gedi karin horta inaad u sheegto. waayo ilmaha kobaha qaaliga tayadooday wataan. annaga waxaan ka fikiraynaa kaliya waa qaali,
waxaa laga yaabaa kuwa 10 ka bixisay inay bil gudood ku go'aan kuwaana sanad gaaraan marka inaad tiraa hooy waa fiicantaa lacagti un baan nagu adag kuwan oo raqiistaan oo ku gada kuwa qaaligaan oo ku gada tusaalan ka wada labadiba isku hayso marka saaxiibada u faanaysidna kan qaaliga gasho marka meelaha boodboodaysidna kan raqiista gasho si ay kuwan ciyoon kaaga dhamaan kuwan macnaha aad isku dhowrato labadooda oo kala tusaale ahaan aad dhigi kartaa markay waalidka isu yimaadaan taasoo kala faa'iideysa waxa kala faa'iideysaa waxaan hadda adduunka qabsaday oo taleefanada ilmaha intay xaq u leeyihiin intay xaq u lahayn abi waalid ahaan xataa marka xaqaaga waalidka og tahay ina cunugaaga ka xiri kartid xaq u leedahay waxyaabaha qaar inuu nafiirsan karin adee xataa kalsooni ku siiyay marka meelaha saas tagto wax badan ka faa'iiday marka waxaa moodaa hooyooyinka marka saas u bacdo inaysan daniyihiin hooyooyinkana ayaana dhihin kaligood aabayaasha marka uu dhibka ku dhacana isla markiiba ururada Soomaalida leeda lacag ay dawladda ka qaataan waxna ma sameeyaan marka dhehaysa kaalayana waxa laga yaabaa inay u haysato inaad tuugaysido adiga lacag ku doonaysid war lacagtan hadii aad awoodeeda leedahay inaad qasnadaas dawladda ka soo baxsato awoodaas aqoontaada ku heshay adaa samaysatay qofna kuma sameey dhibka jira baa dawladda u sheegay dhibka waan lagu sii lacagta adiga laguma siin madaxaaga adiga faham marka inaad lacagtaas dawladda ka soo baxday ka faa'iideysato wax kale laga ma rabo waxna ka barato marka iskoolaad ma waxaan sameeyno waa kala faa'iideysanaa umad dhex ku jirkaasaan ku soo ilmo korsanay wax nooga halaabana male waana ku balaayay la'anahay ilaa hadda waayo waxaan aaminsanahay inay tahay automatic hadaa hooyo noqoto ilaahay ilmo ku siiyay ina automatic hooyo tahay waa tahay jir ahaan laakiin hadaadan fahamsaneyn sida cunugaaga u kori lahayd wax badan ka maqan anaga marka si yaro dadban oo dhib lahayn oo waxaan ka nimidna bulsho collective ah oo wax walba isla qaybsato ilma adeer ilma abti eedo diriska xataa ee hawsha kula wadaan laakiin meeshan waxaan bulsho kelinimadaas ayaa markaas waxay qasab ka dhigay inaad adiga marka raadsato caawimaadana la iska kaasiimay qaarkood lacag ay ku bixiyaan waa ina kursusi waxa jiro lacag lagu bixiyo si cunugaaga kaliya oo dhaqmi lahayd tayna waa free waayo dawladda ogol dadka cusub inay u sameeyso marka saasay free ugu noqoto freegaas ka faa'iideystadii imaatinka yaa dhib ku ah waxay aaminsantahay inay baday hooyo tahay ay automatic hooyo u tahay waxa laga yaabaa mar dambe xeeray fandhaal kala dhaceen adigana wax badan u qaban karin inay iyadoo ordayso ku timaado tan ugu roomba oo ku tiraahdo hal ay caawiyo markaasna way runtii yar tahay jaaday calool nibiri ay gashay kama soo bixi karta dheedheel waa ina kaliya marka inay la dhaqantay ogolaatay bas hadana bartid oo tiraahdo la dhaqan ogolo waxaan cunugaagana soo laga wada qaadama dawladda xataa dhibay ku qabtaa ilmaha ay qaadayso faa'iido kuma qabaan qarash ahaan marka la fiirsho waayo hooyadeed markay hayso saddex laabkeeda iyo adaa ka qaadayaan marka intaas kaliya la fahamsiiyay rabi doonta laakiin waxa ka fiican beter dan khaneysnayna Hollandeeska foorkoome daaweynta waxa ka fiican ka hortaga marka taasaan ku waani lahay runtii ujeedka aan rabno inaan gaarno waxa waaye inaan intan wax ka qabano lugta ugu dambaysa duu ilaahay raal ka noqdane oo hadda wadankina oo runtii stable yahay wax badan la degi karo rajadeen waxa waa inay xataa xagga aan geeyno hawsha oo si alla sidii ay aan uga faa'iideysan karnaba inaan xaggana Soomaaliya wax ka qabano waayo orshahayna duu ilaahay raal ka noqdo ilaa haddana dawladda kaligeed ma dabooli karto runtii ururaad jiro oo wax ka qabto waana loo baahnaa wax marka Soomaaliya dhaqankeeda horaaba abgeed hoostiisa hawsheen ku xalisi jirn waa sidii oo kale bas macaygelinta marka ma dhamaato marka maanta aan ka dhageysay FM raadi ah inuu jiro oo dadka qaar waagi beledkooda ugu tago aniga waagaan koray abay BBC-du dhageysan jira odayaasha dhan saaxiibadiisa shaahil abjira u imaajireen macnaha Soomaalida dhaqan culture wada hadal ah waa leenahay laakiin dibadda marka la yimid waxa moodaa inaanan la qabsiga oo sanoo fududeyn waxa keenayna ay taa qofka idoo soo rafaaday oo dagaal ka soo baxday oo wareersan oo mar le meel tag ahay timid hooyo iyada daal iyo aabba Soomaalidana maxaan ugu badanaaba laba iswadata bay ugu yar yihiin oo ay badana kaliya jiideys ilmaha u badana maxay ka gaartaa iska yar wax badan ay qaban kartaa iska yar hadana dadaalka ma reebano hadii waliba ay cusub tahayna jaanis badan ay leedahay hay'ado badan u furfuran marka waxaan ka codsaday inaan u sheego ka faa'iideysta marka cusubtiin jaaniska waliba leedihiin marka dhowr sano gaartiin ma leedihiin 3 sano 4 sano hore ka faa'iideysta